السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعنا وناقصنا خيارة قيمها يقدرين تمدنا وميل والبود دنيا دافع عالم كاد كجوكتان. halkani waa telefishinka caalamiga Soomaalida Itoobiya si toos ah idinka iibinaya xaruntiisan magaalada Nijigjiga. Akhiir ku soo dhawaada barnaamijkeena shakhsiyaadka caanka. Barnaamijkana waxa idin socodsiinaya anigoo Cad Fataaxada. Hada barnaamijkeena ayana khiyarta qiimaha iyo qadarinta mudana aan ku eegi doono isla markaasina aan ku soo qaadana masbuucan ninka lagu magacaabo Mark Zuckerberg oo isagu ah ninkii soo saaray ama curiyay website-ka Facebook loo yaqaanay maanta dhalinta iyo wadamada farabadan adduunka ay isticmaalaan. isla markaas uu noqdo website-ka loogu isticmaalka badan yahay kasako marka laga yimaado Google-ka, Twitter-ka iyo waxyaabaha kale ee la halmaama ee markaas la xiriira website-yadan kala duwan. bal hadaba website-kan ayaa waxa uu noqday taariikh isla markaasina uu galay in cunugan yar uu noqdo billionaire isla markaasina uu ku guuleystay hadafkiisii oo ahaa in uu aasaaso ama uu sii xoojiyo website-kan Facebook-ga. isagoo waxyaabo fara badan ku soo kordhiyay aaladiisa Facebook ayaa waxaanu ku eegi doonaa taariikhdiisii oo dhameystiran cunugan yar ee Mark Zuckerberg lagu magacaabay oo dhashay wadankaasi Mareykanka. bal hadaba taariikhdaasi iyo hadafyadii kala duwan iyo missionkiisii sida uu gaaray cunugan yar ayaanu ku eegi doonaa barnaamijkeena shakhsiyaadka caanka ee toddobaadkan ee daawasho wacan. Mark Zuckerberg waxa uu dhashay sanadii 1984 waxa uu ku dhashay White Plains ee caasimadda New York ee dalkaasi Mareykanka. Edward oo ahaa aabihi isla markaasina takhasus u leh ilkaha iyo hooyadii Karina oo idna takhasus ku leh cilmiga daweynta maskaxda. isaga iyo saddexda gabdhood ay walaalaha yihiinba waxa ay ku soo koreen Dobsford oo 10 mayl u jirta caasimadda New York halkaas oo uu waxbarashadiisii ardaynimo ka soo qaatay iskuulka sare ee Arlesley. kadibna uu u bedeshay dugsiga Philip Exeter Academy dugsiga oo ahaa meeshuu ku guuleystay maadooyinka xisaabta, astronomy iyo physics-ka markuu dhiganayay dugsiga. markuu dugsiga dhigan jiray waxa uu ku andacon jiray inuu akhriyo koro luqadooyin fara badan oo ay ka mid yihiin French, Hebrew, Latin iyo Ancient Greek. waxaana uu ahaa kabtanka dugsiga dhinaca ciyaarta, xitaa waxa uu yaqaanay gabayada waqtigaas uu ardayga ahaa. waxaa kale oo lagu magacaabi jiray ninka shanaad ee curiyaha social network-ga ee website-ka Facebook-ga. bishii Abriil 2013 waxa uu ahaa afayeenka isku dubaridka Facebook-ga. dhaqaalihiisa waqtigaasna waxaa lagu qiyaasay jiray bishii July 2014 $3.1 bilyan oo dollar. Mark Zuckerberg waxa uu sidoo kale lacag ka heli jiray maalintii shirkadda Zio $1 isagii saaxiibadii wada dhigan jiray jaamacadda Harvard University, Edward Safi, Andrew McCollin, Dustin Moscove iyo Chris Hire. isagoo ku jira jaamacadda ayaa waxa uu isku dayay inuu curiyo website-ka Facebook. kadibna isaga iyo saaxiibadii waxay ardaydii ay ku wada jireen campus-ka ee bareen isticmaalka website-ka. kadibna uu aaday Palo Alto ee California wax yar kadib 2007 markii uu jiray 23 sano waxa uu Mark Zuckerberg noqday billionaire oo sumcad ka helay website-ka Facebook-ga. tirada isticmaalayaasha Facebook waxay ahayd 2012 gaadhay 1 bilyan oo qof. waxa uu heshiis kala duwan ula galay shirkado kale si ay markaas ula heshiiyaan faa'iidada ka soo galaysa lacagta waqtiga uu soo shaabaxay website-kani. sanadii 2010 waxa ay jaraa'idada Time magazine ay ka soo baxday dalkaasi Mareykanka ay ku tilmaantay inuu Mark Zuckerberg uu yahay 10ka nin ee ugu maalqabaysan adduunka, isla markaasna ku tilmaantay jaraa'idadani inuu yahay ninka isagoo hadafkiisa ka mid dhaliyay. sanadii 2010 waxa uu ninkan Mark ku matalay film lagu soo bandhigay website-kan Facebook-ga. uu ku matalay actor taasi oo filmkaasi lagu toosiyay soo ifbixi website-kan Facebook-ga. daba Mark waxa uu bilaabay inuu isticmaalo kombiyuutar iyo qorana software-da markii uu dhigan jiray dugsiga. aabi ayaa waxa uu baray isaga Atari Basic Program ku dhawaadkii 1990 kadibna waxa uu ku daray goob private oo lagu barto barnaamijka kombiyuutarka ee uu leeyahay David Newman, taasoo David ku tilmaamay inuu yahay arday wanaagsan waqtigaasi. Mark Zuckerberg waxa uu kale ka qalan jibay dugsiga Mercy College oo u dhow aqalkiisa. waxa uu aad u jeclaan jiray inuu horumariyo barnaamijka kombiyuutar gaar ahaan communication-ka, toolska iyo gameska. aabihiina oo ahaa isagu takhasus dhinaca ilkaha ayaa waxa uu soo saaray software uu ku magacaabay Zucknet oo uu ogolaanayay inuu dhammaan
kombiyuutaradu aqalka iyo kuwa xaafadaha ay wada shaqeynayaan waxa waqtigaas loo arkay waxtar wanaagsan oo soo shaabaxay sanadii dambe marka loo eego qoraaga lagu magacaabo Jose Antonio ayaa yiri Circle waxa uu soo saaray game taas oo ay caruurtu ay ku ciyaaraan waqtiga uu dugsiga sare ku jiray shirkadda ayaa ku tilmaamtay in aqli badan waqtiga uu bilaa waxbarashadii jaamacadda Harvard Mark Zuckerberg waxa uu ahaa mid hore guulo iyo sumcadda u sii lahaa isagoo oo horeyna u soo sameeyay barnaamijyo hore waxa uu baranayay culumta psychology computer science waxa kale oo qoray barnaamij uu ku magacaabay course match oo u go'aanaya isticmaalayaasha inay ku sameeyaan classka kadibna rabitaankooda si uu markaas uga caawiyo waxbarashada iyo marka ay groupka ay ku sameeyaan assignmentyada waxyar kadib waxa uu asaasay barnaamijyo kala duwan oo ugu horeyntii ku magacaabay face mash kaasoo u ogolaanay inay ardaydu ay ka dooran karaan sawiraanta ugu fiican ay doonayaan intaasi kadib hadal qoraal uu ku sharaxay ayaa waxa uu ku sheegay waxaan haysanaa buugaag lagu magacaabo Facebooks kuwaasoo ay ku jiraan magacaanta iyo sawirada qofka kaasoo ku sheegay meesha uu ku nool yahay xitaa ugu horeyntiina wuxuu sameeyay meelihii la dhigi lahaa laba sawir oo gabdho iyo wiil dadka buuqanayana waa inay ogaadaan meesha ay u baahan yihiin intaa kadib Sarba waxa uu aqabad kala kulmay ardaydii ay wada dhiganayeen jaamacadda oo aan isticmaali kari waayay Facebook oo markaasi oo ardaydu ku andacoonayeen in laga xiray ciwaanadooda oo si fasax la'aan ah kadibna Mark ayaa ka raali geliyay aqabadaha ku timid website-kiisii waqtigaas uu ku jiray jaamacadda bishii January 2004 Mark waxa uu qoray code oo ah website-ka cusub bishii February 2004 waxa uu sameeyay Facebook kaasoo asalkiisu lagu magacaabo facebook.com lixisha kadib markii uu ku dhawaaqay in Facebook la isticmaali karo ayaa waxa uu eedeymo kulul u soo jeediyay saddexda ugu sarsaraysa ee jaamacadda Cameron Taylor Winklevoss iyo Deke Norendra kuwaasoo soo jeediyay inuu khiyaamay inay rumaystaan inuu ka caawinayo aaladda network ee harbeconnection.com la dhaho waxyar kadib markii lagu dhawaaqay aaladan Facebook oo si caalami ah loogu dhawaaqay ayaa saddexda nin ee ugu sareysay jaamacadda ka soo horjeeda ay ku guul daraysteen kadib markii si heer caalami ah loogu dhawaaqay aaladan Facebook saddexdii nin ee ka soo horjeeda ayaa waxay la yimaadeen oo ay dhaheen waa inaanu heshiis la galnaa faa'iido website-kan 1.2 milyan oo qof oo isticmaala ay faa'iido keenayso $3 milyan Mark Zuckerberg warka halka ay xaaladdu marayso waa iska joojiyay jaamacadiisina waa isaga baxay bishii January 2004 ayaa dib loogu yeeray Mark Zuckerberg oo asaasay aaladan Facebook isagoo ku jira jaamacadda bishii February 2004 oo ahayd markii ay ku dhalatay inuu sii wado kobcinta barnaamijka Facebook markii uu dhigan jiray iskuulka Phillips Extra Academy markii dugsiga sare ka qalanjibay 2002 waxa uu asaasay hanaankiisii ahaa inuu sii kobciyo website-kan markii uu dhigan jiray college-ka Mark Zuckerberg waxa uu ku fikiri jiray inuu sii ballaariyo iyagoo caawinayaan saaxiibadii Dustin Moskovitz isla markaasna ay ka bilaabeen Columbia, New York University, Stanford, Dartmouth, Cornell, Ben Brown iyo Yale Summerland Trouble Chamber ayaa waxay aaladan ku soo bandhigeen Haiti 2012 waa waqti ay lagu jiray ciyaarihii Olombigada sida ay ula wadaageen mulkiilaha website-kan Mark Zuckerberg kadib markuu Mark Zuckerberg aaday Palo Alto, California isagoo ay ku wehelinayaan saaxiibkii Moskovitz iyo qaar ka mid ah asxaabtiisa waxay sameysteen aqalan ay ku shaqeeyeen xafiiso waqtigaas xagaaga halkaas uu kula kulmay saaxiibkii Betrel oo ahaa isagoo mulkiilaha maalgashanaya xaruntani sanadii 2014 ayay heleen xaafadii ugu horeysay sanadii 2007 ayaa markii uu wareysiiyay warbaahinta caalamka ku sheegay isla markaasna isagoo oo sharaxaad ka bixinayay sababahooda aniga maahin maxaa yeelay cadadka lacagta ee aniga iyo saaxiibaday shiga kaliya ee nagu fiican waxay ahayd inaan aasno warbaahin furan oo ay bulshada dhexdooda haystaan tanina runtii waa mid soo jiidasho leh waa fikirkayagee sidoo kale sheegay in anigu muhiimadda siiyo waa go'aan kaasoo ka dhigta caalamka mid isku furan bishii July 2010 ayaa waxa kale oo sheegay in shirkadiisu ay heshay dad aad u tiro badan oo isticmaalaya oo dhan 5 milyan oo qof
waxaa kaloo ku qiyaasay haddii aad eegto inta isticmaalaysay page-ka iyo inta ku jirta ama raadinaysa celcelisaan way ku dhowdahay 10% halkii celcelisna inta raadinaysana waa 20%. taasi waa shayga ugu fudud ee aanu samaynay, laakiin ma jeclin inaanu ka helno lacag nagu filan. saa waxaan uga jeedaa waxaanu ku sii rajo weynahay inaan sii wadayno waxa kale oo aanu sii kordhinaynaa meesha aanu rajaynay inaanu gaadhno. haddaba cunugan yar waxaa lagu tiriyaa sanadkii 2010 boqolka qof ee adduunka ugu yar ee tiknoolajiyadda la da'da ah, isagoo sanadkii 2009 ka galay qofka 23 dadkii waqtigaasi loo soo magacaabay. 2010 waxaa loo doortay qofka 16 newsman ee la sameeyay indhaynta oo uu sidoo kalena noqday qofka 50aad ee caalamka ugu caansan adduunka. sanadii 2011 markii uu dhintay Steve Jobs oo caan ku ahaa aaladda tiknoolajiyadda ee Apple ayaa waxa uu Mark Zuckerberg uu yiri Steve Jobs waxa uu waaniyay isla markaasina waxa uu baray sida loo abuuro hogaaminta fiican ee dhinaca aaladda Facebook. isagoo ay ugu dhahay buu yiri diiradda saar dhisidda oo cadad fiican leh iyo shay fiican sida adiga oo kale ah. October 2011 waxa uu warbixinta siiyay saxaafadda BBC-ka. October 2011 waxa uu booqday dalkaas Russia isla markaasina la kulmay ra'iisul wasaaraha Russia waqtigaasi Dmitry caasimadda Moscow si uu sharaxaad uga siiyo waayo aragnimadiisa ee dhinaca Facebook iyo sidii uu Russia uga hirgeli lahaa suuqyada Russia ee aaladani, taasoo Russia waqtigaasi ay isticmaalayeen 9 milyan oo qof halka dadka domestic clone fee ay 34 milyan ay isticmaalayeen. Rebecca Fanning isagoo la hadlay warbaahintan ayaa waxa uu sheegay dadka isticmaalaya ama macaamiisha isticmaalaya Facebook ay yiri Mareykanka 85 milyan ay gaadhay, taasoo lagu waday maalintii ugu horeysay ololaha maalinta Facebook ee Abriil 6, 2013. sanadii 2014 ayaa waxa uu ka qayb galay shirkii caalamiga ah ee laga hadlayay Mobile World Congress ee lagu qabtay Barcelona ee Spain in March 2014 oo ay ka soo qayb galeen wafdi kala duwan oo ka kala socday caalamka oo ay dhan yihiin 75 qof, isla markaasna laga wada hadlayay sidii la isugu xiri lahaa telefoonada gacanta lagu qaatay looga isticmaali lahaa Facebook. isagoo halkaas khudbado ka soo jeediyay oo ku andacooday in mobilku uu taagan yahay isticmaalka mustaqbalka maadaama uu telefoonku yahay mid mustaqbalku qof kasta oo ku nool adduunku heli doono waa inaanu isticmaalaa Facebook. sidoo kalena September waxa kale uu sheegay inuu register gareynayo. bishii May 19 2012 Mark Zuckerberg waxa uu guursaday saaxiibadii oo ay in badan soo wada sheekaysan jireen Priscilla Dan oo deganeyd Palo Alto ee California. ugu dambeyntiina si farxad ay ku dheehan tahay ayay u wada nool yihiin. haddaba deeqa kala duwan ayaa waxa uu gaarsiiyay wadamo fara badan isagoo ay soo dhaweynayaan madax kale oo duwan ee adduunka ugu horeeya madaxweynaha dalkaas Mareykanka Mr. Barack Obama. isla markaasna taasi oo Facebook noqday waxa ay mujtamaca caalamku ay isticmaalaan, isagoo ugu deeqay $1 milyan dugsiyada kala duwan ee dalkaasi Mareykanka. sidoo kalena cunugan yar uu ka qayb qaatay inuu matalo filimadaasi markaasi ay sheekadiisu u sii caan baxdo. waxaa mahad iska leh buu yidhi Facebook maadaama ay isticmaalayeen dad aad u tiro badan adduunka oo dhan oo aan waqti hore ayna heli jirin dhalintani Facebook. bulshaduna ma ayna haysan fursado noocan oo kale ah, balse hadda wax kasta waa isbedelaya. si kastaba ha ahaatee Facebook kuma koobno oo kaliya wada shaqaynta, waxa kale oo jira page oo aad ka dheehan karto waxyaabaha madadaalada oo kale, taas oo u sahlaysa bulshadu ku nastaan ama ay ku raaxaystaan.
waxa khayraadka qiimaha iyo qadarinta mudan waxaanu intaasi aanu ku eegaynay taariikh nololeedkiisii iyo walibana jaranjartii kala duwan oo la soo maray website-kan isla markaasina uu ku guuleystay hadafkiisii balse waxaanu eegi doonaa qaybteena dambe aanu ku eegi doonaa Facebook-ga waxyaabaha kala duwan ee loo isticmaalo sidoo kale Facebook-ga waxa uu ku soo kordhiyay application-ada loo yaqaano ama software-ada loo yaqaano WhatsApp iyo Instagram isagoo sidoo kale cunugan yar uu ku soo kordhiyay in shirkadaha kala duwan ee dunida caalamku ay u soo gelin karaan Facebook-ga ama say u isticmaali karaan inay xaysiiskooda ay ugu soo gudbiyaan iyaga oo ku yeelanaya page kala duwan sidoo kalena sida lagu tilmaamay cunugan yar in uu ka helay lacag fara badan shirkadahaasi kala duwan ayaa waxaanu ku eegaynaa qaybteena isla markaasina waxaan sidoo kalena ku eegi doonaa qaybteenin wadamada fara badan oo kamid ah wadamada Carabta waqtigii uu ka kacay kacdoonada kala duwan ay ku doonayeen in uu ka dhasho dimuqraadiyadoonka ayaa waxa ay fikradooda u isticmaali jireen page-ka kala duwan taasoo lagu tilmaamay in uu Facebook yahay midka kaliya ee caalamku ay si wada jir ah u isticmaali doonaan bal hadaba akhirta qiimaha iyo qadarinta mudan oo bal qaybtana aanu eegno oo ku eegno qaybaha kala duwan ee sida dhaqaalaha uu uga soo galay iyo walibana sida ay bulshada adduunku dhaqan fikradooda ay u isticmaalaan ee daawasho wacan faa'iidooyinka kale ee uu Facebook keenay waxa kale oo kamid ah waxa uu noqday meesha kaliya caalamku ay ku wada xiriiraan isla markaasna ay fikradooda ay ku kala gudbiyaan ay waxa ay doonayaan ay ku cabiraan waxa yaabaha ugu waaweyn ee lagu xusuusan karo Facebook oo waxa kamid ah markii uu kacdoonkii ka biloomay wadamada Carabta ee dalalka Tunisia, Egypt, Syria, Yemen iyo wadamo kaleba iyagoo mujtamacaas halkaas ka kacay ay ku wada xiriirayeen Facebook waxyaabaha ay doonayaan oo ay halkaasi page-ka ay ku leeyihiin kacdoon bulshadu ay ugu bandhigayaan aaladani Facebook waxyaabaha dhiirigelinaya iyo kacdoonadan kala duwan taasoo dad badan oo wada kacdoonadan ay ku muujinayeen waxyaabaha ay ku mudaharaadayaan oo ay soo gelin jireen page-ka ay ku leeyihiin Facebook iyo fikradooda ku aadan iyadoo isticmaalka Facebook uu noqday mid aad u sii kordhaysa ayaa markii ugu horeysay ee uu ka biloomay kacdoonkani dimuqraadiga doonka dalkaasi Tunisia ayay aaladani ay ku soo muujin jireen wax kasta oo ay doonayaan inay ku hantaan fikrada shacabka si ay markaasi shacab uga qayb qaataan qorshayaasha ay doonayaan inay dalka isbedel ay ku keenaan sidoo kalena iyaga oo qoraal ay kaga horjeedaan boqortooyada waqtigaasi ka talin jirtay ayaa waxay u sii gudubtay kacdoonani oo ay saameysay dalkaasi Egypt oo iyaguna ka soo horjeeday dawladii ka talin jirtay waqtigaas oo kacdoonada ka bilaabmay wadamada Carabta taas oo ay aaladana Facebook ay u sahashay inay ku cabiraan fikradooda ku aadan inay rabaan bedel dimuqraadiyadeed dawladdaasi taasoo ka dhigtay isticmaalka loogu badan yahay ee la isticmaalo Kasako website-ka kale ee qof kasta oo reer Egypt ahna ay halkaasi ku soo daabici jireen fikradooda ay ku doonayaan inuu isbedel ka dhasho wadanka oo ay ka hana qaado dimuqraadiyadda iyadoo u sii gudubtay wadamo kale oo ay ka mid ka yihiin Yemen iyo Syria si kastaba ahaatee Facebook ayaa waxa ay sii kordhisay sanadii ugu dambeysay dakhliga soo galaya markii ay milyan qof ay ku sii xidhmeen intaasi waxa kale oo dheer oo maanta ay dhalinta soo koraysa ay aad u isticmaalaan website-kan iyagoo ka dhigtay in ay tahay aaladda ugu ballaaran ee ay isticmaalaan qaaradani Afrika ka soo website-da kale sidoo kalena isticmaalka Google-ka ayaa isna ah mid la xiriira oo uu leeyahay macaamiil aad u tiro badan oo aan isna kaba dhicin isticmaalayaasha mujtamaca adduunka ee isticmaalaya Facebook iyo Bill Gates sidii dhaxmaray sanadii 2007 dhacdadii ugu cajiibka badnaa ayaa ku dhacday Facebook shirkadda Microsoft ay doonaysay in 1.6 cadad ahaan inay ka hesho Facebook si ay markaas u hesho lacag dhan 240 milyan oo dollar marka loo eego tirada dadka iyagu ka faalooda ay sheegayaan cadad uu gaaray Facebook 15 bilyan ay tahay mid aad u wanaagsan oo fiican shirkadda taasoo dakhliga soo galay ayna gaareen 2 milyan sanadkii kadib heshiiskii Bill Gates ahaa inuu ku yeesho account Facebook isagoo isticmaalaya
saacado badan maalintii si uu markaas ula xidhiidho dad aad u tiro badan balse waqti yar kadib waa iska xidhay akoonkiis waxaa jira dad badan oo kala hadlaya chatka caadi ahaana muuna Bill Gates jeclani intaas oo dad oo ah uu la hadlo balse waqti yar kadib waa iska xidhay akoonkii sababtoo ah waxaa jira dad badan oo kala hadlaya chatka caadi ahaan muuna Bill Gates jeclani intaas oo dad ah inuu la hadlo si kastaba ha ahaatee Bill Gates waxa uu ahaa ninkii u ololayn jiray shirkadda Facebook caalamka oo dhan taasoo ay faa'iido weyn ugu jirto shirkadda Microsoft iyadoo uu isticmaalaysa xaysiisyadeeda ay soo saartay shirkaddu ilaa 2011 siday lacag u soo xirayso Facebook sanadii 2013 ilaha dakhliga ee Facebook waxa ay gaadhay 7.87 bilyan oo dollar intaasi kadib macaashka kaliya ee ay shirkaddu hesho waxa ay noqotay 1.5 bilyan oo dollar saddexdii sano ee ugu dambeysana waxa ay korodhay 6 fold lacagta inta leeg waxa ay ka soo gashaa shirkadahani dadka isticmaalaya beejajka iyo waqtiga ay galayaan dadka isticmaalaya oo sii kordhaysa taasoo dad badan ay xaysiiskoodu u isticmaalaan Facebook boqolkiiba 5 dakhliga soo galay sanadihii ugu dambeeyay shirkadda waa xaysiisyada ay isticmaalayaan dadka shirkadaha kala duwan ee u isticmaalaya inay soo galiyaan Facebook inta kalena waa kuwa iyagu ka iibsada khudaarta kala duwan iyo daawooyinka lagu soo xaysiyo dadka ganacsayaasha sida unugyada khudaarta iyo waxyaabaha la midka ah Mark Zuckerberg oo ah nin isagu qorshe leh isla markaasna ilaaliya qorshihiisa shirkadda ayaa si wada sii kordhinta aaladaha kala duwan oo si xorriyad ah ay u horumarinayaan ayaa bishii Abriil 2012 ay shirkaddani horumarisay application-ka Instagram-ka oo ay ku baxday lacag dhan 1 bilyan oo dollar inkastoo uu application-ku horumariyay ninka lagu magacaabo Krager iyo Kevin Strom xitaa hadda Instagram-ku waa application aad ka helayso Android-yada in October 2014 Mark Zuckerberg waxa uu dhameeyay heshiiskii kala iibsiga application-ka WhatsApp-ka loo yaqaano oo uu ku iibsaday 22 bilyan taasoo Facebook laga bixiyay oo kaliya 4.59 dollar oo cash ahaan iyo 777 milyan 760,669 oo la shirkiyay shirkado badan WhatsApp-kuna waa application loo isticmaalo fariimaha waxaana aasaasay Johncom iyo Brian October 2009 marka loo eego maanta Facebook waa website-ka saddexaad ee adduunka taasoo muwaadiniintiisa sida ayna uga warqabin dawladuhu ay uga warqabto shirkadani Mark waxa uu ku nool yahay Palo Alto kaasoo ay hantida uu leeyahay ay gaadhayso ee aqalka taala 7 milyan oo dollar 5 aqal oo fadhiya goobaha biyaha oo uu gurigu leeyahay sidoo kalena ay dhan tahay alaabta ama hantida taala aqalka 5,000 oo square وآخرت قيمة هي قدرين تمضنا وحنا أنت سكسو أفمرنا برنامج كنا الشخصيات كعنكا ونكسو قادرنا نك يسوق عرية ويب سايت كفيسبوك لوجو مجاعب مارك سوكربيرg وده شيء ودن كاسم مريكنكا هذا بعونه جنير أيه واحد النقطة يسوق بليونير marka laga reebo qamal qabeennada kale ee ka sareeya Bill Gates oo nukasoo qaadanay masbuuciyadii hore balse barnaamijkeenana waxa dhinaca kaamiradeega ay waa saaxiibkay Umar Ahmed waxa sidoo kale barnaamijkeena habeeya waa saaxiibkay Cabdi Ciise waxa barnaamijkan idin soo diyaariyay isla markaasina idin socodsiinaya anigoo Cabdi Fataax Xada inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono haduu eebaha wada loo ogolaado waaniyo dhamaan asxaabtiga la qayb qaato idin leh nabaday assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh